بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ونكسن داود يال halkani waa TV-ga Soomaali Cable xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho ku soo dhawaada warkii caalamka waxa ay warrami doonaan anigoo Cabditax Canuur ah qodobada wararkeena ugu waaweyn waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta hortagay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in heshiis walba oo ka soo baxa magaalada Dhuusamareeb uu dib ugu soo celin doono xildhibaanada golaha shacabka qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxay siyaabo kala duwan uga hadleen khudbadii maanta madaxweyne Farmaajo ka horjeediyay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxa ay maanta war ka soo saareen shirka la filayo in magaalada Dhuusamareeb ay dhawaan ku yeeshaan madaxda dawladda dhexe iyo waliba mas'uuliyiinta maamul goboleedyada dalka maxaabiis Soomaaliya oo muddo ku xirnaa xabsi ku yaala dalka Tanzania ayaa maanta dib loogu soo celiyay magaalada Muqdisho xubnaha amniga ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa baaq nabadeed u diray beelo walaalo oo ku dagaalamaya deegaano ka tirsan gobolka Sool daawadayaal intaas waxay hayeen qaar ka mid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa iminkana u diyaar garoow wararkaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan balse marka hore